السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan naga daawanaysiin waa Mahad Axmed official soo dhawaada dhamaantiin meel kasta oo caalamka joogtiin insha Allah. Waxaan ka raali gelinayaa in aan maalmahan mashquulay oo aan wax video idin soo gelin insha Allah. Channelka inta aan hore ula socon insha Allah soo dhawaada wuxuu ku saabsan yahay ama oo maaragtaa channelkan oo macnaha soo gudbiya lifestyle-ka iyo miisaan dhimista miisaan kordhinta business-ka online-ka iyo waxyaabahaas ayuu markaas wax weeye aan ku sameynaa channelkeena. marka soo dhawaada insha Allah waxaan rajeynayaa inaad nala qabsan doontiin, waxaan rajeynayaa inaad naga faa'iidi doontiin insha Allah biidhnillaahi kariim, lana sii wadaagi doontiin asxaabtiina channelkan si ay iyaguna markaas wax weeye uga faa'iideystaan insha Allah. soo dhawaada maantay waxaa noo socday challenge bishii September kowdeedii ayuu noo bilowday 21 beri oo challenge ayaa markaas waxa weeye noo socday sida caadigaana bil kasta dhamaadkeeda ayaan shaacinaa guusha dadka ku guuleystay challenge-gii la soo dhaafay iyo midka cusub bilaabayna iyo shuruudihiisa insha Allah. haddaba waxaa jira bishii la soo dhaafay 21 beri oo challenge oo markaas waxa weeye qofkii rabo inuu miisaan dhimo ama kordhiyo waxa weeye waliba abaalmarin la siinayo. marka waxaan soo qaadanaa dad badan challenge-ga ka qayb qaatay, dad badan isbedel sameeyay, dad badan miisaan iska dhimay oo miisaan hab caafimaad ku riday, noloshooda wax badan ka bedelay, dad badan quraacdoodii bedelay oo maanta haysta energy iyo nutrition iyo lifestyle, dad badan maanta waxa weeye ay u bilaabatay nolol cusub runtii. okay, haddaba saddexda qof ee ugu miisaan ridita badan bishii la soo dhaafay ayaan halkan ku hayaa insha Allah. qofka koowaad marka top 3 ayaa la soo qaataa, abaalmarinna waa la siiyaa runtii lacag ah oo aad iyo aad u badan insha Allah. markaas hadda halkan in kagama sheegay laakiin markaad ila soo hadashiina insha Allah ku sheegi doonaa insha Allah shuruudaha challenge-ga. number 2 qofka koowaad waxa ka dhacay magaciisa insha Allah ma sheegayno, waxa ka dhacay 8 kiilo iyo 100 gram. 8 kiilo ayaa ka dhacday qofka kaalinta koowaad galay runtii abaalmarin lacageed ayuu ku guuleystay isagoo hadafkiisiina gaaray. marka hadafkaagiina waad gaaraysaa, abaalmarinna waad helaysaa, marka wax ka fiican runtii ma jiraan. qofka labaad isagana waxa ka dhacay 7 kiilo iyo 400, waa 7 kiilo iyo bar meelahaas ayaa ka dhacay isagana saas oo kale abaalmarin ayuu ku guuleystay. qofka saddexaadna waxa ka dhacay 4.9 4 kiilo iyo 900, waa iska 5 kiilo runtii ayaa isagana ka dhacay. good, dhammaantood waa u hambaleynayaa hadday channelkayga ku xiran yihiin, hadday daawo doonaan muuqaalkan runtii. groupkana waa tii habeen dhaweed waxa weeye loogu hambaliyeeyay oo ay ku heleen markaas waxa weeye hambaliyadoodii iyo abaalmarintoodii. runtii dadkaas just waxay bilaabeen programkan kowdii bishii 9aad, marka 21 beri ayay intaa ku sameeyeen. marka 21 beri kaliya ayay markaas waxa weeye waxa aragteen ku sameeyeen. waxaa kaloo jiro dad badan oo 3 kiilo ka dhacday, 3 kiilo iyo bar, 4 kiilo, 2 kiilo, dad badan jira. marka saddexda qof ma soo qaadanay. haddaba waxa muuqaalkan muhiimadiisu waxay tahay oo aan kugu soo galay maadaama bishii dhamaad tahay, waxa jira haddana 1 October ayuu noo bilaabanayaa haddana challenge-geeni 1 October ka hor ayaa marka waa inaad markaas wax weey la soo xiriirto oo haddaad diyaar tahay aad markaas wax weey plan-kaaga iyo system-kaaga ku hagaajiyo, shuruudihiina aan kuu sheego, gruubyadii aan kugu soo daro si aad noola sameeydo markaas wax weey challenge-gii. hadafkaagana adiga garanaya wuxuu yahay haddaad rabto inaad miisaan dhinto ama miisaan kordhido ama aad qudaaca inaad bedesho rabto adigay kugu xiran tahay. marka ogeysiisku waxay tahay wuxuu bilaabanayaa 1 October ayuu bilaabanayaa. marka sidaa darteed ayaan markaas wax weey hadda in kugu soo galay. haddii aad rabto inaad waxa weeye 3 bilood ee sanadka ka dhiman inaad isbedel ku sameeydo 15 kiilo 20 kiilo iska ridi kartaa runtii, noloshaadana waad bedeli kartaa si sanadkaas cusub aad u gasho waxa weeye new life. sanadka 2020 oo ku noqdo sanad aad noloshaada wax badan ka bedeshay. haddaba insha Allah haddii aad diyaar u tahay taas, telefoonkayga iyo facebookkayga iyo maaragtaa social media oo dhan, hadday Instagram noqon lahayd, hadday Facebook noqon lahayd, hadday WhatsApp ka noqon lahayd, waad igala soo xiriiri kartaa insha Allah. waxaan ka cudur daaranayaa insha Allah Soomaaliya iyo Afrika inaan wali gaarin, aad iyo aad uga xumahay insha Allah biidhnillaahi kariim. video ayaa jira aan hoos idin dhigi doono, qaybta hoose insha Allah description-ka idin dhigi doono oo aan ugu talagalay dadka Afrika iyo Soomaaliya jooga inay daawadaan, talooyin badan aan ku siinayo. please haddaad wadamada joogto videogaas daawo insha Allah hoos ku dhigi doono. intiina kale ee Europe, America, Canada, Australia, dhulka South Africa dhulka jooga qoraal idin soo qori doontaa si aan kaaga qayb geliyo insha Allah. go'aan na qaado
noloshaadana bedel adigayna kugu xiran tahay go-aanadana adigu qaadan ama adigu wax aadan adigu samaynin cid kuu keenaysa ma jirto insha allah bidnillahi alkariim marka aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqon doonto dadka 1 October bilaabi doona programkooda loona hambaliyay doono 22 bisha insha allah 21 beri aad baan idin salaamaya insha allah please hanaga iloobin channelka dad ku cusub tahay inaad subscribe samayso midda kale dad badan oo waxaan arkay channelka daawanaya subscribe na uusan u ahayn please hanaga xasdin subscribe noo samee insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi